magaalada Dobley ee hoostimaada gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa imika ka socda dhaqdhaqaaq ciidan oo xoog badan kaasi oo ay dowladda federaalka Soomaaliya ay ku daabuleyso ciidamada xoogga dalka Soomaaliya gaar ahaan ciidamada danab iyo gorgor kuwaasi oo la doonayo inay markaasi la wareegaan sida ay dowladda federaalka Soomaaliya sheegtay fariisimo ay faarujinayaan ciidamada ATMIS oo dhawaan ka baxaya goobahaas qaarkoodna ay hore uga baxeen maadaama sanadkan oo dhamaadkiisa December markii la gaaro bisha 12 ay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay dhammaan la wareegi doonaan goobaha ciidamada ATMIS ay joogaan inta badan ATMIS ayaa December markii la gaaro waxa lagu sameeyaa in la dhimo ciidamadaasi wadamada ay ka kala socdaanna dib loogu celiyo qaarkood haddaba sidoo kale dadka marka ay isweydiinayaan waa maxay sababtu ciidamada dowladda federaalka iyo dowladda dhexe ugu daabuleyso gobolka Jubbada Hoose iyo waliba gobolka Gedo haddaba shalay ayay ahayd ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya markii ay dowladda ka dejisay dhowr diyaaradood magaalada Raskamboni ee hoostagta gobolka Jubbada Hoose taasi oo markaasi dadku ay ku fasireen in ciidamadaasi ay doonayaan ama madaxweynuhu ku amray in ay soo qabto madaxweynihii dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo mar kale asiga isdoortay oo dowladuna ay ku tilmaamtay doorashadiisu inay tahay mid sharci darro ah oo ay ka soo horjeedo aqoonsina ayna siinaynin oo ay doonayso inay gacantiisa ka bixiso magaalada Kismaayo Jubbaland ayaa inta badan sida la ogsoon yahay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo jooga 13 sano ku dhawaad mar walibana asiga ayaa isdoorto dowladuna waxa ay ku tilmaamtay in madaxweyne Axmed Madoobe uu yahay mid aanan sharciyada waafaqsanayn doorashada uu qabanayana aysan kamid ahayn mid waafaqsan sharciga iyo dastuurka Soomaaliya haddaba qaar kamid ah ciidamadaasi ayaa waxa ay ku sii siqayaan dhawaan dhul aad u baaxad weyn leh oo ay dowladda federaalka Soomaaliya sheegtay inay markaa ay ilaalinayaan xuduudda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya haddaba ciidamadan ayaa waxa ay shalay ka degteen qaybo kamid ah gobolka Gedo iyo waliba gobolka Jubbada Hoose Raskamboni ayaa waxa ay qayb ka ahaayeen ciidamada ka degay kuwa aad u fara badan oo gaaraya dhowr diyaaradood ilaa iyo 8 diyaaradood oo ciidamadaasi ay kaga degeen shalay ayaa galinkii dambe Axmed Madoobe ciidamo oo ka soo diray magaalada Kismaayo ee xarunta Jubbada Hoose xarunta maamul goboleedka Jubbaland ayaa waxa markaasi ay soo isticmaalayeen badda doonyo ayagoo ku soo maraya ayaa waxay noqdeen kuwa markaasi ay ka warhelaan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya danab iyo gorgor kuwa oo ilaalo waxaan u joogay Raskamboni isla markiiba waxa markaa ay suuragal ku noqotay in ciidamadu ay isku soo dhiibaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya loona balan qaado in magaalada Muqdisho la geynayo lana siin doono guno ama mushaar joogto ah qaarkoodna darajo la siin doono la dalacsiin doono Axmed Madoobe ayaa maamulkiisa dhowr bilood oo ilaa iyo 8 bilood aanan ciidamadaasi wax mushaar ah ku qaadanin 8 bilood ee la soo dhaafay tan waxay u muuqataa in Axmed Madoobe oo weyn doono ciidamo aad u fara badan oo imikan daacada si uu ah kuwa oo doonayay inuu kula dagaalamo dowladda federaalka Soomaaliya haddaba maxaynu ka baranay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo dhawaan ay ku sii daabuleyso ama ay soo buuxdaafiyeen gobolka Shabeellada gobolka Jubbada Hoose iyo waliba gobolka Gedo haddii dowladda federaalka Soomaaliya ay Axmed Madoobe ka saarto maamul goboleedka Jubbaland maxaa markaasi suuragal u noqon kara dowladda federaalka Soomaaliya haddaba waxa ay dadku inta badan ay sheegayaan in dowladda federaalka Soomaaliya ay u wanaagsan tahay inay heshiis la qaadato Axmed Madoobe taana waxa ay wiiqaysaa awoodda dowladda federaalka Soomaaliya taadinkeedana dowladdu waxa ay doorbitay inay meeshaasi ayagu ay la wareegaan oo ay geystaan qof ayagu markaasi ka marqaata dowladdaas Jubbaland ay noqoto mid mar waliba doorashadeeda qof waliba u tartami karo haddaba awoodda dowladda haddii ay markaasi la wareegto gacan ku haynta magaalada Kismaayo ama xarunta Jubbaland
ee caasimadda u ah Axmed Madoobena halka laga saaro dowladdu waxaad moodaysaa in markaasi dhammaan maamul goboleedyada dalka Soomaaliya ay si toos ah u amar qaadan doonaan madaxtooyada Soomaaliya. Maxamed Abuukar Baariyow, magaalada Cape Town, South Africa.